Wararka naga soo gaaraya magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa sheegaya in maanta mar kale suuqyada magaaladaasi laga diiday isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga. Ganacsatada qaarkood ayaa waxay sheegeen in sababta diidmada isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ay timid ka gadaal markii bangiga Puntland uu diiday sarifka lacagta iyo socodsiinta shilinka Soomaaliga, taasna saameyn weyn ka dhalatay. Inta badan xarumaha ganacsiga suuqyada magaalada Garowe iyo dukaamada ku yaala xaafadaha ay ka kooban tahay Garowe ayaa maanta laga isticmaalka lacagta shilinka Soomaalida iyadoon wax lagu kala iibsanayo oo kaliya doolarka. Dadka danta yar ee ku nool magaalada Garowe xarunta gobolka Nugaal ayaa waxa warbaahinta ay u xaqiijiyeen in saameyn ballaaran ay ku yeelatay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga, iyagoona sheegay in aysan wax ku iibsan karin lacagta doolarka. Magaalada Garowe iyo magaalooyinka kale ee Puntland ayaa waxa hore uga dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo diidmada lacagta shilinka Soomaaliga, iyagoona xukuumadda Puntland horeba ay ugu guuldareysatay wax ka qabashada diidmada lacagta shilinka Soomaaliga. Magaalooyinka Gaalkacyo, Garowe, Qardhiyo, Boosaaso dhammaan ka arrimiyo Puntland ayaa waxaa hore uga dhacay dibadbaxyo waaweyn kuwaasoo looga soo horjeeday in laga diiday gebi ahaanba in la isticmaalo lacagta shilinka Soomaaliga. Madaxweynaha maamulka Puntland Mudane Saciid Cabdulaahi Dani oo dhowaan hadlay ayaa sheegay in gebi ahaanba ganacsatada looga baahan yahay inay qaataan lacagta shilinka Soomaaliga, balse arrintaasi ayaanan suuragelin. Ganacsatada ayaa qaarkood ku eedeeyay xukuumadda Puntland inay ayada hormuud u tahay in ay lacagtaasi ay halkaasi ay ka socon weydo, maadaama ay iyagoona sheegay in dowladda Puntland canshuurta ay ka qaadayso oo kaliya lacagta doolarka, iyagoona diiday inay qaataan shilinka Soomaaliga. Arrintan ayaana waxaa dhibaato weyn ay ku noqotay dadka danta yar ee ku nool deegaanada Puntland. Dhinaca kale, khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax miino oo ka dhacay kasoo horjeedka iskuulka hoyga Xamar oo ku dhow madaxtooyadii hore Cabdiqaasin oo ku taala inta u dhaxaysa isgoosyada kilomitir 4 iyo Tarabuunka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Goobjoogayaal ayaa ku soo waramay in qaraxa lala eegtay gaari uu watay taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Mahad Cabdiraxmaan Aadan, balse uu ka badbaaday, waxaana jira khasaare kala duwan oo dhaliyay qaraxaasi. Gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Hodan ayaa qaraxa ka hadlay, waxaana uu sheegay in dhimashada ay cagacagaynayso ilaa 4 askari halka qof shacabna uu ku geeriyooday sida uu sheegay, welina ay socdaan baaritaano kale oo ku aadan ciddii ku waxyeelowday qaraxaasi. 4 askari ee geeriyootay ayaa mid ka mid ah magaciisa lagu soo koobay oo kaliya Cabdiqani, waxaana mas-uuliyadda qaraxaasi sheegtay dagaalamayaasha Al-Shabaab, iyagoona sheegay in si dirqi ah kaga badbaaday. Mahad Cabdiraxmaan Aadan waa taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed. Maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaa ka dhacay qaraxyo iyo dilil qorsheysan kuwaasi oo mas-uuliyadoodu ay sheeganayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Magaalada Muqdisho oo isku diyaarinaysa in lagu qabto doorashada Soomaaliya ayaa waxaa ku soo kordhay dililka iyo qaraxyada, waxaana jirta in Al-Shabaab saameyn weyn ay ku yeesheen islamarkaana howlgalladii ugu badnaa ay ka fuliyeen toddobaadyadii lasoo dhaafay.